horta nagu filan waxa lagu daray maanta ma jirto waxaan ka baqaynaa dawarka si badan xogo shucuurkii qeyrada ay geliyeen هلا سومالي عاو waxay ka shidan tahay media inaan daawado waxyaabaha la yaaban ay diin soo daaya azmadi ka dhacday hotelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeyay meesha ka soo baxayaan ahaa laga soo saaray ilaahay dila dhint bal arag ninkan shiiqan arag yaabihii aan arkay ama aan qiimeeyay oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akhriyay iyo wixii noo muuqday oo dadku aan ku arkayna maalin kasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akhrinay aqoonidooda ku tacalluqan ka hadli jiraan laakiin xal waxaan la noolaa ficilkoodii toos ah oo mubaashir ah waxaan nasiib darro ah dad dhalinyaro ah wasaaran dhalinyarada aniga arkay dad dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo islaam sheeganaya oo u soo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo caruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan wax dambiye lahayn inay baabiyaan oo ay laayaan u soo galay taasaan horta indhaha soo saaray waxa kale oo duruusta aan soo arkay kamid ah in qofku ajalkiisa uu dhimanayo hadda Sheekh Nuur iyo walaashan Batola iyo Sahra waxay noogu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go'aan xumada inta meel la iska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in la iska xoreeyo dawladuna ay arrinta hogaamiso shacabkuna ay garab istaagaan arrintaas iyada marka duruusta xal aan ka faa'iideysto waxa kamid ah nimankan qofkii ilaahay dila umay dilaya khudbadii jimcihii soo dhaaf khudbad jimcadan akhriya iyagan ka hadlaayay shalay subaxi oo maalintii ugu dambeysay ahayd hotelka oo nabad looga soo kacayna salaada subax markaan jamaacada dushay iyagan ka hadlaayay marka qofka adduunka ugu nacab yihiin waxaan waleynaa maanta Sheekh Nuur Baaruudi aniga qof ayna ganacmi ma jirto labadeena darbigii qolkii aan ku jirnay darbigiisa noo soo istaageen haddana ma awoodin inay dilaan laana dilka xaq Ilaahay ka yimaada marka waxaan ilaahay marka qof kasta oo Soomaali ah cabsida al-shabaab meel iska dhigto ha ogaato in ajalkeedu dhamanayso taasna waa ajal un baa dhintaa soo taabtay oo aad u muhiim ah tan saddexaad haddii dadka qaarkood islaahayeen al-shabaab diin qaloocan xataa Allah ka dhigay waa u qaloocanta diintooda diin sax ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaro 6 jirka ama 5 jirka ah ee ay dileen iyo islaanta aniga qolkii aan deganaa gabar Soomaaliyeed oo nin odaya oo aziiz ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madaba noono u timid caruur yar siday ay caruurtina horteeda ku dileen odagii ay soo ziyaaratay ee qiimaha badan horteeda ku dileen لا إله إلا الله محمد رسول الله gabadhu waa soo carartay qolkiisa qolku ku deganaan oo aan deganaayo aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ay soo gashay qolkii ugu dhex dilay marka yani inaysan marka arxam lahayn oo aysan cidna dhaafeen oo maanta kid yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu kula dardaarmay la taqtulu nisaan wala al-atfal wala ashab as-sawami' dadka kaniisadaha isaga cibaadeysanaayo dagaalba ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqeyda ah iyo caruurta faraha ka qaado hadda dadka la dhaafay waa gaalo ugu oo waliba wiilashoodu kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haweenkaas ragooda ay ku dilayaan ay gaalo yihiin hadana la taaban maayo caruurta marka inaysan marka diinta sheeganay shaqo ku lahayn taas horta daliil idana darsi weyn oo Soomaali ka baran karta waay darsiga afraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaal yihiin maxaa yeelay nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay inagu dhamaad dulshayna ku dhamaatay waxbay turtuurayaan bamboyna turtuurayaan marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya hadana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga afraad ama shanaad oo ka faa'iidina waxa kamid ah geesinimada dhalinyarada Soomaaliyeed ciidamada ah ciidamada Soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aad active u ah xalay anigu fiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo anaga meesha isla joogna kaliya ciidanku waa ka maqnaayeen gurmadii ku yimideen muddan isla nooleen 2 saacadood ku dhadhow 2 saacadood ka bacdi ay 4 geesay uga soo dhaceen uga soo daateen ciidamadii markaas ay iyagoon u naxayn ay intay galeen meesha oo waliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe anigu aan ku jiray jarjar soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aad u tababaran waa fiirsanayeen gudaha u soo galeen ay dabxir hotelka dusha iyo hoos uga sameeyeen markaas ay dad aad u muhiim ah oo qiimo badan ay ka soo saareen oo marka wali noolaayeen ay ku jirtay dad badan waa dileen oo meydkii way arkeen oo hadda qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hogaankii la rabay inuu ciidanka Soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far kaliya leeyahay
in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la raba inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oo niyada u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aad u qiimo badan oo dalkan xoreyn karta shaabna ka adag intaas waa duruustii runtii aan xalay ka faa'iiday anigu arrimihii aan la noolaa oo xanuunka badnaa oo aan indhaha ku hayay waxaan usoo gudbaa kuna soo gabagabeynayaa oon la qaybsanayaa madaxdii sharafta badneed ee iga horeysay ereyga baaqa ah ee ay soo direen walaalayaal ilaahay aayad quraan wuxuu ku leeyahay jalla jalaaluhu wa adiicu allaha wa rasuulahu wa laa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum aayaddaas waxay tusinaysaa waxaa ilaahay ku amraya bilowgeeda in ilaahay rasuulkiisa la adeeco maxaa lagu adeecayaa marka daacada ilaahay munaasaba ay leedahay mar walba meesha ilaahay yani marka wuxuu ka hadli doono ayaa daacadu markaa ku tacalluqa halkan waxaa lagu adeecayaa in ummaddu ay midowdo danaheeda ay ka midowdo oo aysan iskhilaafin si awoodeedu aysan u baabi'in intaas ay aayaddu sheegaysaa si arrintaa loo gaarana in leesu sabro lees qaato lees dul qaato ay ku imaan kartaa wasbiru in allaha maca saabiriin kusoo gabagabay marka maanta Soomaaliya iyo dhulka u taalay cidda shabaab inay sida u duleystaan gabdhaheena iyo wiilasheena iyo raggeena iyo odayaasheena inay laayaan yani mujtamaci xal lagu laayo hotelkii aan deganayn qaybaha bulshada oo dhan ay isugu jireen generaal ku dhintay Allah naxariisto generaal Cabdiraxmaan Khaliif oo qolkiisa ugu tagay ku dileen waxa ku jiray niman wasiir ahay oo haddana qaar wasiir dawlad goboleedyada yihiin haday risaalo maanta ay tahay risaalada ugu weyn waxa waaye in dawlad goboleedyada maanta dawladda dhaxla fadhiya inay qiimeeyaan dhiiga madooba nuuno maxamed inay qiimeeyaan ay ogaadaan in madooba nuuno oo risaalo uu yahay aad u qiimo badan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in risaaladu ay tahay in maanta idoo la midaysan yahay nimankaas khilaafka inta meel la iska dhigo dawladnimada loo soo jeesto in aan dawladeena iyo anagoo midaysan ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa aan fulino daacada ilaahay iyo midda rasuulka aan la nimaado kelimadeena aan midayno waxa kaliya oo furan aan ka dhigno dalka in la xoreeyo wax kale oo furan aysan jirin waxa dhacday xilligii dawladda islaamka ugu horeysay boqolkii sano ugu horeysay dhexdeeda Cabdilmalik ibn Marwan xilligiisi khawaarijtii oo kuwana ka daraa ama lamid ahaay waa ilmahoodii ayaa dadkii nafta u keenay markaasay magaalo leeyahay Khuraasaan iyo Basra iyo dhul aad u muhiim ah oo waliba qani ahay dawladdu ku taagneed ay qabsadeen ciidamadii dawladda inta loo diray dhowr jeer jabiyeen shir laga qaatay ururadii bulshada iyo dawladdu dhama fariistay runtii sharka noocan oo kale tawligooda jireen inta la isu yimid Cabdilmalik wuxuu yiraahday hal loo yeero ganacsatada waa loo yeeray odayaashana hal loo yeeray dhalinyarada loo yeeray saddexdiinaan deegaanka ma dhalateen intaasaan kusoo gabagabeynayaa kliibkan kale Soomaali weyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu Sheekh Cali oo ka sheekeynayay maalintii meesha ka dhacay qaraxa galabtii 12 saac shalmaan darahaad oo nacamtay ku go'doomay oo Ilaahay ka soo badbaadiyay alla dilaana dhinto mi faanteen Ilaahay ka soo badbaadiyay qofku ajasiisa timaad u baa dhimanay cid kale ba dhimanayso marka isigiyaan hadda wareysigiisa aan dhageysaneynay marka caawa klibkayga kalena saasan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu sheer dhaha igu dagsada laag dhaha intaba ii sameeya assalaamu calaykum Soomaali weyn waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu